waxaa mahad leh allihii la khalqay oo halkan isugu keenay maanta oo noo suurtageliyey inaan kulligeen markhaati ka wada hadno daahfuurka aan maanta ku furayno garoonkan garowe ee aan loogu magac daray jenaraal maxamed abshir muuse allah u naxariisto. waxaan u mahad celinayaa dowladda puntland ugu horreeya madaxweynaha mar kale iyo shacabkeeda guud ahaan sida sharafta leh ay noo soo dhaweeyeen oo wanaagsan oo diiran. waxay runtii soo xasuusisay febraayo 8 markii meel walba laga bananbaxay oo laga taageeray dowladda cusub oo hadda ku dhow 1 sano. runtii waxay ii muujisay shacabka Soomaaliyeed weli inay u hamuun qabaan ama ay taageersan yihiin dowladdan halka sano aan jirsan weli. waa ku mahadsan yihiin reer Puntland aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa soo dhaweyntaas jeeran. taas waxay muujinaysaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba inay isaga mid yihiin dowlad jaceylka oo fariintii annagu aan sheegnay markii nala doortay oo ahayd dowladdan waa dowlad shacab ah inay aamineen oo taageeradoodana ay ka dhabeeyeen. waana xaqiiqa bacdama dowladdaani shacabku ay ka heshay taageero weyn. dowladdan shacabkaa iska leh Soomaaliyeed waana adduunkay ka jirtaay dalalka dimuqraadiyiinta ah dowlad walbaba shacabkaa iska leh. shacabka waxaa laga rabaa marka inay siiyaan taageero joogto ah. taageeradaas joogtada ah waxaa ka mid ah sida madaxweynaha uu sheegay in garoonkan maanta ka furan halkan ay ka wada qayb galeen guud ahaan shacabka reer Puntland, ganacsatadooda iyo culamadooda iyo salaadiintooda iyo cid walbaba ay wax ka geysteen. waxa weeye waa taageerada looga baahan yahay shacabka inay qayb ka noqdaan horumarka dalkooda. haddii shacabkaasu ay taageeraan dowladdaasi xaqiiq waxaa ah in maamulkaasi uu horumaro. waxaa laga rabaa shacabka inay difaacdaan oo ilaashadaan waxay haystaan oo isbeddelkan uu ku yimaado waxay ku ballameen ay isku waafaqsan yihiin oo sharciyeysan. idinkana waa ku ammaanan tihiin runtii reer Puntland laga soo bilaabo 98 ilaa hadda sida wanaagsan oo aad u taageertaan mar walba dowladda timaada gacan u siisaan aad u ilaashataan wax ugu horeeya oo laga rabo shacab inay ilaashadaan oo ah nabadda. nabadda waxay keentaa marka xasilooni siyaasadeed. waa sheegnaa mar walba nabaddu waa furaha horumarka. haddaysan nabad ka jiri lahayn Puntland intaasoo airport iyo intaasoo jidad iyo weliba madaxweynaha ugu soo wareejiyey shalay magaalada garowe ee ka socda horumarka iyo dhismaha iyo hoteelada la dhisaayo runtii waa wax laydinku ammaano. horumarkaasna waxaan ilaahay ka baryaynaa inay gaarto guud ahaan dalka Soomaaliyeed. waxaan aaminsanahay marka haddii meel walba nabad ay timaado Soomaaliya si dhaqsi ah inay dib ugu soo noqonayso kaabayaasheeda dhaqaalaha. waxaa kaloo muhiim ah inaad dul qaadataan shacabku inuu dul qaato. dowladnimadu hal maalin ma aha, hal bil ma aha, hal sano ma aha. waa wax taxano ah oo u baahan maalin walbaba dhismo u baahan. marka shaqo badan yaa laga rabaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada in ay maxaan ku idhaahdaa adkeeyaan maamulkooda. laakiin shacabkana waxaa laga rabaa inay dul qaataan aysan is oran ileen waxaa la yidhaha Roma hal maalin kuma dhisman. annaga 27 sano waxaan ku jirnay dhibaato joogto ah oo idinka ugu horreeya wixii dhibka ugu horreeya uu soo arkay. dhismaha dowladduna waxay qaadanaysaa muddo dheer, hal maalin maaha. marka waxaa la rabaa shacabku inay u dul qaataan maamulkooda hadduu yahay dowlad goboleed iyo hadduu yahay tan federaalka oo lagu adkaysto wax la yidhaha continuity lagu adkaysto. shacabka waxaa laga rabaa inay qayb ka noqdaan dhaqaalaha maamulka markaasi ka tirsan yihiin hadday tahay dowlad goboleed iyo federaal inay bixiyaan. waxa aan caalamka ka sugayno waa wax dad laga soo aruuriyay idinkoo kale ah. waxay ku timaadaa dhaqaale aruurinta in shacabku horta uu ku kalsoon yahay dowladdooda. annagana waxaan laga rabaa inaan kalsoonidaasaan ka dhabayno oo aan hirgelino waxa shacabka ay naga rabaan Soomaaliyeed. idinkana waxaa laydinka rabaa inaad dhaqaalo ku kaalmaysaan. dhaqaalaha macnaheedu waxay tahay canshuurta.
وقارن قرنوا عن شورته إذا كل حكي على سن محيلي هدان رهنو دولة الشيء وحكسونا وواحد ضد لقصه قاضي واحد كلمة معه وضد إذا كلاس حلقامي ودولته هو ذاس ديمقراطية آمني أو سيه فن أو ناكس أو بحش عن شورته دولة داسنا أي مش سيد ضدكو أي وجيهين أنا جو حنا جربا مرك دولة جوالات هدان هاي يهدان هاي فدرال حنا جربا ولا شقين إحدانا وحنا جربا دولة إحدانا فدرال كنا ولا شقين لنا هاي وصل خلاف إيمان حيل هذو خلاف إيمانه وحا إيمانه يا وح الله وجه هرمها هاي يستاجان وأن الله درين ضد الصوماليين أن الله درين دنت جودنا أن الله درين مركز دولة الدحيح أي نبتة هاي أو هشيست هاي أو ولا شقين لنا هاي إن لا شقين دولة جوالات يجا نفتوه taas wuxuu ku imaanaysaa marka guud ahaan dalku inuu isqabsado horumarkiisa oo qolooyinka nabadiidka ah oo dhibka lagu haya aan meel uga soo wajeesano oo aan uga adkaano waxa laga rabaa dawladda annaga naga rabtaan hufnaan in waxa aad bixisaan oo canshuurihiina inaan si wanaagsan idinku maamulno oo ilaahay hortiisa ah oo aan dib idinku soo celino adeegeeda hadday tahay biyo nadiif hadday tahay iskuulo hadday tahay jidad hadday tahay infrastructure sidaan ka arka hadda magaalada Garowe hawsha wanaagsan oo ka socota in dib idinku soo celiyo wixii aad bixiseen oo si wanaagsan idinku maamulo tan ugu muhiimsan waxay tahay soo celinta sharafka ummadda Soomaaliyeed oo naga luntay 27 sano ka hor inaan dib u soo celino sharafkii iyo qiimkii aan caalamka ku lahayn aan soo celino taasna waxay ku imaanaysaa annagoo xiriir wanaagsan la sameysana caalamka intiisa kale oo dal walbaba aan saaxiib la nahay dal walbana danahooda aan kala shaqeynayno iyagana danahooda nagala shaqeynayaan iyadoo ay ku salaysan tahay mutual interest oo laba dhinac ah oo aysan ahayn mid dhinac u janjeerta aysan ahayn iyadoo weliba ku dhisan wada shaqeyn iskaashi iyo ixtiraam taasna waxaan aaminsanahay inay ku soo noqonayso sharafka Soomaaliyeed oo ay ka bilaabatay shacabka oo ku xigto dowlad goboleedyada iyo annagoo federaalkii ah haddaan saas uga qabsanno oo aan mid nahay oo aan midaysannahay caalamkuna waana ixtiraamayaan waana sharfayaan waana nala shaqeynayaan tan kaloo muhiimka waxay tahay amniga inaan ka wada shaqeyno dhibka koonfurta yaalla Puntland iyo waqooyi iyo meel walba waa yaallaa dhibka kuwan ugu haya oo shabaabka ah markay culays dareemaan khasbiyan waxay aadi karaan meelaha ay leeyihiin waad ku dhuuman kartaan oo aan isleeyahay hadda inay bilaabeen inay soo galaan buuraha Puntland isku mowqif baan ka nahay isku waxaan ku jirnaa front yaan ku jirnaa waana la wada dagaalaynaa cadowga Soomaaliya haysta oo dhibka ku haya hadday joogaan Puntland iyo hadday joogaan koonfurta hadday joogaan saas darteed waxa weeye inaan adkeeno amniga inaan adkeeno meel walba Soomaalida joogta ee amniga adkeyso tan kaloo ugu dambaysan ku soo gabagabeynaa waxay tahay xoojinta dimuqraadiyadda intaasan sheegay waxay horumarin u tahay waxay u tahay aasaas horumarka dalka oo ugu horeeyo eerboorada aad arkaysaan oo la dhisayo haddii aysan jirin dimuqraadiyad ilaa waa aragnay wax walba oo dhib waa soo aragnay maanta waxay tahay dimuqraadiyadda inaan shacabku celino shacabku ay doortaan qofka ay rabaan shacabka ay doortaan xisbiyo maaha qabiil shacabka ay doortaan qofka isleeyihiin waa ku habboon yahay isan ku dooran yuu yahay isan ku dooran taas annaga laga rabaa dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka ah inaan soo gaarsiino insha Allah hadduu ilaahay electionka soo socdo doorasho soo socota qof walba oo Soomaali ah oo la gaari karo inuu helo fursad uu ku codeeyo ugu codeeyo xisbiga uu rabo xisbigu doonayo ugu codeeyo waa suu sheegay walaalkeen Salaad Cali Jeelle oo markii aan soo bixinay ugu yiri eebow dalkayga aan u socdaay hayga tagin aad buu intirsadaa waa dhab uu fududeeya inuu ka furto xisbi meeshan iyo xafiis u fududeeya saasana horumarka Soomaaliya ku gaartaa in qofka lagu doorto wanaagiisa sharafkiisa karaamadiisa waxqabadkiisa hufnaantiisa iyo xisbigu wato wuxuu u taagan yahay aysan ahayn ninkaan igu cid maaha waxaasi Soomaaliya waa ku soo jabtay dhibaatooyin badan yaa naga soo gaaray oo aad arkaysaan maanta meesha aan taagannahay iyo midnimo la'aanteena Soomaaliya hore u socoto Soomaaliya ha noolaato waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh